kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meel walba joogtaan iyo si kasto oo muuqaalno idin soo gaarayaba ku soo dhawaada channelka Diamond Show iyo page-ka Diamond Show fadlan nagu soo bir. Maanta barnaamijkeena waxa uu ku saabsan yahay maxaa heesahayn sida uu burburay dalkeena hooyo ee Soomaaliya 30 sano ka hor. dalka kaliya ma burburin ee waxa burburay afkii Soomaaliga suugaantii iyo wax walba oo Soomaalidu adeegsan jireen ayaa noqday wax si fudud loo adeegsado. maanta waxaan diiradda saari doonaa maxaa heesahayn. dhalinyaradii waxay daaqada ka sii bixinayaan afkeeni hooyo ayagoo ujeedkoodu ahayn inay wax dhibaan balse aan kala garanaynin waxa suugaanta ah iyo waxaan suugaan ahayn. af Soomaaligu inta uu qaybsamo iyo inta kaleba hab u badnaato 2020-2021 farta af Soomaaligu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo waaweyn sida tix iyo tiraab. inta aan qeexin tix iyo tiraab horta waa maxay af Soomaaliga ama farta Soomaaliga ah. af Soomaaliga xaruftiisu waa Laatiini, dhawaaqiisuna waa Carabi, waxaana la qoray farta Soomaaliga sanadku markuu ahaa 1972 oo far Soomaaligu ka kooban yahay ama uu leeyahay waa 10 shaqal iyo 21 shibane. waa sida ay noo sheegeen abwaanadeena iyo qorayaasha aan ka dhaxalnay nala soo gaarsiiyay afka Soomaaliga. aan qeexo waxa ay kala yihiin tix iyo tiraab maxaase hoos yimaada labadooda oo aad kala socotaa. tixdu waa qayb hadalka ka mid ah waxayna leedahay ridmo qaafiyad u gaar ah oo xaraf ku socota tuducda hore ama dhexe galana kuna soo noqnoqota 2, 3 ama 4 goor. tixdu waa suugaantuna waa maansaduna waxa ay ka kooban tahay qaybo badan oo ugu waaweyn yihiin kuwa soo socda. gabayga ayaa budhig u ah geeraarka, jiiftada, masafada, baraamburka, heesaha, guurowga, shiribka, mahmahda iyo kuwa kale. xeerka tixdu waa inaad 3 waxyaabood dhowrtaa: munaasabada, macnaha iyo xarafka. qaybta labaad ee ugu weyn Soomaaliga. tiraabtu waa qayb hadalka ka mid ah oo aan lahayn ridmo, qaafiyad ama xaraf ay ku socoto. halka si fiican ula soco waxa ayna ka kooban tahay murti, gogaaleysi, sheeko iyo qaybo kale. haddaba tuducdayga ama ujeedka aan leeyahay ayaa ah waxa heesa iyo waxaan heesahayn. markaan soo tirinaynay tixda waxaa ku soo jiray qaybaheeda kala duwan ee suugaanta. heeso ama hees waa maxay hees? heestu waxa ay ku timaadaa badda maanso oo dhan. heestana waxaa magac loogu bixiyaa ereyada ama micnaha heestaasu ay leedahay. heestana inta badan waxa ay leedahay qaafiyad, xaraf raac ah iyo miisaan ku jaango'an hadba badda ay ku jirto. haddaba waxa heesa iyo waxaan heesayn ayaan ila dhageysta heestii Afrika Hurudoy xarafka ay ku socoto iyo sida ay u qaabaysan tahay. Afrika Hurudoy adow ku heriye Hurudoy hadiyad adi Hurudoy hadba'un ay Hurudoy. hey Afrika Hurudoy adow ku heriye Hurudoy hadiyad adi Hurudoy hadba'un ay Hurudoy. ahamal sara Hurudoy hayin sidiisa Hurudoy la hogaaminaya. ahamal sara Hurudoy hayin sidiisa Hurudoy la hogaaminaya. dulillama hilade away hana dadade dulillama hilade away hana dadade. waxaan filayaa inaad soo dhageysatay bal haatana ila dhageyso midda 2021 lagu daadsan yahay. always I'm keen ogow inaan ahay boqorkii TikTok maahan hip hop maqaayadaadan ka dhex qadayna waana halaynaa waana habaynaa cabaadka yaray xoolo waa ku furaa sidii furka saliida farta ku gashaa sidii faraantiga waa ku cabiidaa sidii cawaanta
cawantaa feeraha kaa tumaa sidii dabalkii hebelow inaqa adi marqaati waayahay waxaan filayaa in dhalinyaro badan ay kala saari doonaan afkeena Soomaaliga oo ka sii dhacaya daaqada haddaan la celina sida aan anaka u dhaxalnay af Soomaaliga oo noo soo gaaray ogaada in jiilka naga dambeeya jiilka ka sii dambeeya oo af Soomaaligu gaari dooneen heesaha dad badan ayaa wax ku fahma haatana daaqada ay ka sii baxayaan yaa abwaana waxaan rabaa heesaha la sameeyo abwaanin ayaa sameeyay maskaxdoodana ay ka soo maaxataa balse qofkii kasta ma ahan inuu inta warqad qaato iraahdo hees ayaan sameynaya abwaan waxa ah qof leh hal abuur isla markaana sameeya tiriyana ama aqoon u leh tixda tiraabta qaybaheeda kala duwan suugaanta waxna ka yaqaana afka hooyo keena Soomaaliyana hodanka ah dabcan qolo gaar ah ujeedkaygu ma aha balse waxa ujeedkaygu uu yahay afkeena hooyo inuu yahay mid sii socda waa hadii aan la gacan qaban dhowr sano ka bacdi waa kuma hasantiin la socodkiina sidaa iyo nabadgelyo fadlan ugu soo biir page-ka iyo channel-kaba taan barnaamijka xiga ku rumi doono nabadgelyo